aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan jeclahay inaan hal kelimo meeshaan ka soo jeediyo. marka ugu horeysa ummadii Soomaaliyeed ahlu sunna wal jamaaca iyo qolooyin kale oo aan markaa iyagu ahlu sunna nisbadeeda magaceeda sheegan mid kasto ay ahaayeenba oo meeshaan dagaalku ku qabsaday dhibaatada xoog leh ku dhacday xabad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen waxaan u soo jeedinayaa tacsiya kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacsiyeynaynaa. waxaan leenahay acdama allaahu ajrakum, ilaahay ajrigiinna ha weyneeyo, wa axsana cazaa'akum, sabarkiinnana alla ha wanaajiyo, wagafara limaytikum, wixii idinka dhintayna ilaahay ha u naxariisto. waa la wada xanuunsanaynaa runtii. annaguna haddaan nahay ahlu sunna wal jamaaca xaqiiqda markii la yidhaahdo urur siyaasi ah ma ahan ahlu sunna wal jamaaca, ma ahan dad adduunyo doon ah, ma ahan dad madaxtinimo doon iyo meel kaleeto doonaya, ma ahan. waa dad caqiidada islaamka iyo ummadda caalamka oo kulligood aan la kala soocin inay gaarsiiyaan jecel, inay nabadgelyo ku wada noolaadaan, in ay isdhaafsadaan wax alla wixii faa'iidooyin ah, hadday ganacsi leedahay, hadday leedahay wax isu tar kale, in ay isdhaafsadaan, inaysan isku gaalnimo xugmin oo aysan dhiigooda bannaysan, dhaqankoodana in laga dhaco aysan bannaysan. intaas ayay ahayd waxa lagu yaqaano ahlu sunna wal jamaaca. macnaheeduna wuxuu yahay sunna waxaa la yidhaahdaa wixii ka sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ama qowl ah ama ficil ah ama wax dhacay oo aan waqtigaas hortiisa ka dhicin laakiin uu ogaaday uusanna nahyin ah ayaa la yidhaahdaa sunno la yidhaahdaa. waa qowl iyo ficil iyo taqriir wax la yidhaahdo oo sugid wax uu sugay oo uusan nahyin ah. maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu arko wax munkar ah waa nahyin jiray, waa reebi jiray. hadduusan arkin marka wuxuu inay munkar yihiin inuusan reebin baa ka dhalanaysa. sunno noocaas ayaa la yidhaahdaa. jamaacana waxaa weeye muslimiinta meesha ay ugu bataan dadka aqoonta leh, ilaahay shareecadiisa yaqaana. xaqiiqada markii la yidhaahdana dadka alla kacabsiga iyo aqoonta shareecada islaamka isku darsaday ah waxay isku raacaan. waxaasaa waxaa la yidhaahdaa jamaaca la yidhaahdaa. haddii kale oo qofku